فرقدو waxaan tagaynaa balad xaw ciidamo ayaa hadda goostay goordhow waxayna galeen balad xaw waxayna ka goosteen doolow taliye ku-xigeenka booliiskana doolowna waxaa xiray ciidamada Itoobiya seeb maxay ku dambeyn kartaa marka xaaladaas wallahi horta xaaladan meeshan waxa ka soo socda dagaal ba horta meesha ka soo socda imada ma waxaan ugu baaqnay dadka gobolka gada degan ee waxgaradka ee culimadooyinka ee siyaasiyiinta leh iyo maamulka uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe in hal siyaasadeed hawsha lagu dhameeyo oo isfahan lagu dhameeyo oo maxaan ku dhahay dawladda federaalka ee Soomaaliya intaan la gaadhin maadaama xayndaabka Jubbaland ku wada jiraan inay iyagu isfahmaan beesha daaroodna isla yihiin ilaa hadda beesha Jareerweyne oo wax ka degta beesha dir oo wax ka degta Jubbaland beela farba Cawrumar oo wax ka dega Sheekhaal oo wax ka degta yacni hadda gaajacl wax ka degan beela far badan baa degan beelahaasi iyo hadda waxba iyo shaqaaqa kama taagna laakiin dadka ay wax ka dhaxeeyaan maanta waa beelaha waaweyn waa beesha Kuumade iyo beesha sida maxaan ku dhahaa daarood ama mareexaanka oo gobolka gada degan aniga marka waxaan dhihi lahaa war dad intuu meesha ku dhamaan lahaa 70 ruux baa qaarra ku dhintay qaarra ku xun Soomaalina 30 sano soo dagaalamaysa barnaamijka waxaad moodaa in dhagaha laga furaysanayo Soomaaliduna sideedaba kala adkaansho un bay taqaanaa mooyaane adduunka kale meeshu xalka siyaasadeed uu ka gaaro ma yaqaanaanba Soomaalidu waliga adigu Soomaali waxa weeyaan mana kala adkaadaan kumana heshiiyaan haddii ay ku soo goliya wax hal siyaasadeed oo kuma heshiiyaan inuu balaayo kale iyo ummado kale intay u caga juglayaan ay soo galaan mooyaane hadda waxaa jira ciidamo baabuur wata oo ka goostay magaalada doolow ka goosto waxay u socdaan ciidamadaasi dhanka iyo waxay u socdaaleen Cabdishiid bay u socdaaleen halkaas qadal loogu diyaariyay special lacaga loogu diyaariyay soo dhawaada la yiri waxa la yiri mushaarkiina halkaas oo ka sii soconaya lacagana hadda qaadanaysaan maxaan ku dhahay dawladii baad ka tirsantiin Jubbaland New Jubbaland wax la dhaho meesha laga dhisay yaad qayb ka tihiin saraakiil badootiin baa lagu يعني وحويان هم جودي بكر لقاء كوا كله أو أيضا ساسو كله شوكانسي جو السعودية بربرك كلا أيضا جبلان أي كوا دو حدشة يا شوكانسي يا إني دولة دكسو بحانو دنك جبلان أسوا قاستانا ويشران وأيضا لفتودو حيليه إذا ما نوصل بيرو دنك الدولة ده إذا ما نوجي ما دبيليه وهذا التلفزيون كودي يوربين تود مركز دعوة جبلان أنت هسو وحي بقى السعودي بيليه لكن مقالة سو مقلنا وربان تكشيء الموجي ها هتكون مقالة ولا لا أيوة صوص مركب حويه هرت ماشي ولا صحابين أيا وأركيسي وبابور عبد البريال أيو لسه دل أحمد محمد إسلام جبلان إمارات ككوريجي لما بقول أو حب مياه سلام بقول يكونتن حبه أو كوي دشيكياش يقوليها فضول يقوليها عرس بالسهر تشري أيو إمارات كوسو دشي كل إمارات كدو سوسينا بورسل عجا وأسود ديبي بورسل عجنا وأسود ديبي ولا ليه إسكو مارت إسكو حاه إماراتكم مركز دنت أوليه والصومالي أنهشينين وي أحمد مدوبنا ما تشعل حسن شيخنا ما تشعل جبلان ما تشعل نيو جبلان ما تشعل إيدو كرج عليه مجرد وإنه فتقنا لنا كل ذو هذا برنامج المقال كآخرنا يا وحنكو أركهي وحود دون يابا حتى إنه إماراتكو قبصادو هدي به كوسم يقول يا مستقبل قرشيه سأه إنه قبصادو الصوماليا يجيسك أفريقيا إلا باب المندب يا محن كنا ريرسيد إنه أنت لو رجودون هيا أنا وهران كهبارة وحارة إمارات إلهي وواد أرتاو مدي مسلمين من ليبيا ما يمن با ما العراق با ما سوريا ما الصوماليا ما محن كنا هاي ما السودان با ما جيبوتي با أنت صدروا بابي وما ذكرون أشقينا يا مركب وحنا البض با أكتي سمرت بض أيا لسوق وجويو إمارات كمركب اللي يدادو بض با ميلو بكمرت سيدا إمارات هذا ضد فربضان مسلمين يا قارن مسلمين هم بيكونوا نوليه مركا مسلمين كل نيادهم بلا صباحيه إله وحنقول بدع نمان كاس محنقول هذا عالمين تا بقولال كمليين مسلمين تا محنقول هذا دول كلاسمي إله أذوقنا بدع كل رجل بدعس أنتوا كل رجمته ما بلواي مال لقى سوق بتاع أقولاد العجال كحنا ما قرنا حكومته بهالكيجا ما بتشوف له ضم بلواي اللي ليه هو يقول بيرت إنه بدأ سكان لا بدأ سكان marka horta nimankaas oo adow ah ayaa Soomaalidu isku xaabeynay laakiin anaga dagaal ma hurinayno ka warbaahin ahaan waxaan jecelahay dadka walaalaha ee labada deegaan iyo siyaasiyiintoodu inay heshiiyaan xasan sheekh baan ka maqli jiray Soomaaliya heshiis dunidana heshiis la hadda marka waxaan ugu baaqaynaa oo leenahay Jubbaland la wada leeyahay oo heshiisa oo wiil ka dhimanin wiil u soo kordha mooyaane Soomaaliya oo maxaan ku dhahay hore u socota
oo ka baxda hebel baa intaasoo cabdibile baa yaa ka goosatay ciidan baa ka goostay ree hebel ciidan baa ka goostay annaga isukaana soo dhiibay waxaas waa xifaaltan wey wax meel gaarhayana ma aha hadda waxaan arkay warbaahinta qaarkood qaar axmed madoobe taageerahayaan qaar waxaa arkaysaa new jubbaland iyo commentiga lagu karbaasha qaarna axmed madoobe taageersan qaarna waxay ninkan kismaayo ku odonsan maxaa ka taageeraysan ha qaar xaggan ay ku taagsan annaga marka waxaan leenahay war dadkan waa dad walaala soomaalina 30 sano is soo wada haysatay soomaalina cadow badan bay leedahay soomaali marka uma baahna qori iyo xabad uma baahna waxaan leenahay meeshin karaan axmed madoobe xasan sheekh marna meeshin karaan axmed madoobe xasan sheekh oo la dagaalay shariif oo la dagaalay xasan sheekh oo la dagaalay ilaa intaas xataa cabdullaahi maxaakiim oo la dagaalay marka axmed madoobe waxa ma ogolaa la yiri cid asaga dantiisa aan ahayn cidda kismaayo kala hadasho ama shantiisana ka hadasho baarka foodo gelina xal sameeyay reegadan waxay taageen axmed madoobe weligiisna nooma imaan danna nooma hayo annaga dantayna qabsanayna maxaa la dhihi karaa marka aniga waxaan leeyahay guud ahaanba waxaan xal loo heli karin horta adduunka ma jiro waxaan imaaraadda Itoobiya inta ku dhex jiraan lama heshiin karo ha waxaan xal loo heli karin taliye ku-xigeenka booliiska dowladda lagu xiro oo dowladda Soomaaliya ka tirsan Jubbaland ka tirsan u shaqeynayay ay waxa looga shakiyay inuu ku biir rabo dhanka iyo maxaa la yiraahdaa Cabdirashiid Janan inuu ku biir rabo looga shakiyay xabsiga rukub la siiyay marka baashan iyo meel loo raacamal isma deynaya warta Soomaali isma deynaya Itoobiya hubay ku soo daldalaysaa imaaraadna lacag iyo baabuur ku soo daldalaya xagan kale qoladan kalena dowladda ku xiran yihiin New Jubbaland marka meesha qaab la isku dhaafay qaab la lagu dhaafo ayaa la garanayay bari baa waxaa dhacday markii nimankii gobonimo doonka ahaa ee onaliftu markii dagaalamayeen ee dowlad deegaanka ka dagaalamayeen ayaa waxay ka adkaadeen nimankii Tigreega ahaa iyo Itoobiya ka adkaadeen xarihii baa lagu shubay way soo bixi waayeen waa badhaweyn 2007 iyo 2005 ma dhaweyn xilliga marka laga adkaanayo Itoobiyaanki iyo waxaa kala miirmay Soomaalidii markay kala miirmeen baa Mala Zanaawi baa intuu duulay naargalihii baa wuxuu tagay magaalada Khartoum buu tagay Umar al-Bashir inkaartii dadkan maxaan ku dhahay shacabka Soomaali galbeed baa haysatay ayaa wuxuu ku yiri war dadkan sida Janjaweed aanu galay Darfur aanu galay iyaga isku hubeeyo iyaga inta isku hubayso iyaga has xasuuqeen Ingiriiskana lacag ugu faraha badneed buu New Booliska siin jiray oo ku bixiyay oo lacagtiina budgetka ku bixiyay waxa bixinayay Ingiriiska bixinayay si yani looga takhaluso marka Ingiriiskuna cadaawad buu Soomaalida u qabaa oo Itoobiya ku soo hubay nimankii marka oo lafta ahaa niman New Bolis oo fara badan baa loo sameeyay nin walaalkii waxa la yiri geed ugu jira geesi noqon waaye niman walaaladooda baa lagu soo hubay islaam baa marka raamayna yeeshay nimanku niman waxay jimahdo raamay lahaayeen gobonimo doonku raamay lahaayeen nimankii New Boliskuna raamay yeesheen marka wasoo akaade islaam bay soo mareen marka markaasay islaanta marka waxay rabaan qolada New Bolisku wax khayr daran baa inay dilaan bay rabaan islaanta markaasay dhahay waxaan nahay oo laftii baana mana ahay New Bolisku garo oo taageero inay taageertii ka raadinaya markaasay tireedo maxaa tii markaasay dhahan jabhadi baana markaasay idin kala garan weyna guuleysta kuwa tiimba macnaha waa idinka dhaxbaxay waa ka dhaxbaxay kuwa tiimba anagu idin kala garan weynay guuleystay hadii ma على قرله عيدنا قرله على قرله عيدنا قرله مال maamadii loo raaco male idin kala garan weyna iska dhaafay hadda aniga waxaan leeyahay Jubbaland hawada guuleysto laakiin Jubbaland kala guuleysata anu ma taageeray Jubbaland kala guuleysata ma taageeray waxaan rabaa Soomaali wada guuleysata Jubbaland wada guuleysata Jubbaland wiil ka dhimanin uma doomidowda islaamnimada si fiican loogu soo noqdo saraakiishu hal cadow yeesho Imaaraad iyo Itoobiya wixii ma garanaysaa qurunaha ee ummadda Soomaaliyeed kala qaybinaya anigu barnaamijkaasan u durbaantumahayaaye ma rabo Soomaali hebelka baa meesha ku waxaynaya dad walaalo islaam in la kala taageero anigu barnaamijka waan diidanahay marka waxaan leeyahay barnaamijka dib ugu soo noqdo codkan madax badan baa dhageysata madaxda aamusan dib hawshan ha galeen culimo adduunka ha galeen madaxda dawladda federaalka akhriya adduunka waa laga xisaabtamay hawshan hoos inta u dhigaan dib ha u galeen baan leeyahay anigu maslaxada iyo walaalnimada ha lagu soo dhawaado فرقة ما سنتهاي دولة الصومالية ندنت ذا وذا أحمدون ندنت سوتها قلوين كل ندنت ذا مركب واحدا أو هاي أمد الصوماليات ماشي نسكجر نعمل إساء أو نول بس إذا أسكت صور لها يصيدوا كوبي عاملها يصيدوا كوجوج لها إنه كفكرة عمل إساء مركب لا يوحنا أمد الصومالية كلا قوجيو تقال كبلد حاول نشان كوي دونا برامج الجراي مالف جارسية إنت برامج كان برامج لما كنا دونا حد لنا في أمان الله